قدوميه قبل كان مسؤولية ديس يأمني جيس أنا وسارية أنا وهويمي أنا يطوركم يا غير madaxweyne farmaajo markii hore inuu yiraahdo ciyaarta isla garno firimbigan ana jeeb ku haysta adiga markii gacan ku taabatane waa yeerinaya ana hada ku taabtane laba yeerinaya firimbiga asaga haysta moogtahay nin asaga firimbigi haysta yaa la ciyaara markii doorasho aan kalsooni lagu gelin maxay keeni kartaa badii sheega fowda keeni dalkan miyaa fowda ximbaari kara waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan أريد بحنت عصب فعل علاقات يهري علاقات xilli madaxeedka xukuumadaha iyo madaxdu marka uu dhammaanayo sidii caadada iyo dhaqanka siyaasadeed ahaana waddanku isu diyaarinayo inuu galo doorasho waxaa kor u kaca dareenka yooyootanka iyo lahjadaha adag ee la xiriira hannaanka hoggaanka waddanku isu beddelayo taasi ma aha mid u gaara Soomaaliya ee xitaa waddamada sheegtay inay horumar iyo hannaan tala wadaag ah gaareen ayaa ku hafta doorashooyinka dadweynaha qaarkii oo qiimeynaya kuleylka hadallada iyo erayada siyaasiyiinta ku tartamaya xilka ayaa u qaata in xaalku adag yahay oo ay suurtagal tahay in dagaal iyo balaayo aan loo tooghayn ka dhici doonaan doorashada iyo habka awoodda waddanka loola kala wareegayo ha yeeshee siyaasiyiintu waxa ay isugu jiraan kuwo og walwalka iyo walaahowga ku dhaca dadweynaha dhaqaalaha iyo habnololeedka muwaadiniinta iyo kuwa aan ogayn balse u xusul duubaya inay xilka sii joogaan ama ay yimaadaan taariikh ahaan jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxa ay leedahay sooyaal tala wadaag oo ku bilowday 9 sano oo hannaanka xisbiyada badan waddanku ku socday iyo 20 sano oo gudaha iyo dibadda waddanka baarlamaanku ku dooranaya madaxweynaha qabanaya talada iyo hoggaanka xukunka 29 sano ee waddanku ku jira nidaamyada kala duwan ee doorashooyinka inta la xasuusta rabshadii ugu weyneed ee la xiriirtay doorashooyinku waxa ay ka dhacday doorashadii Juun sanadkii 1967 dhiig iyo dhimasho lama soo warin ha yeeshee beelaha qaarkood ayaa tirsanayay in la boobay kuraastooda sidaas awgeedna waxa ay ku jireen hardan joogto ah oo ay ku doonayeen sidii ay ku soo celin lahaayeen kuraasta ay u arkaan in laga booliyey dadka wax ka qoray doorashadii 1967 qaarkood waxa ay qabaan in Allaha u naxariistay dilkii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake uu xiriir la lahaa rabshadii doorashadaas ha yeeshee ilaa hadda lama hayo wax muujinaya askarigii dilay madaxweynaha oo ka tirsanaa booliiskana waxa lagu fuliyey dil toogasho ah arrinta waxaa sii qaboojinayay inaan marna kursi ku dhisan habbeeleed oo yaal baarlamaanka uusan ku fariisan qof aan beesha ka tirsanayn ama aan ku abtirsan aqoon-yahanka wax ka qoray doorashooyinka Soomaaliya oo Soomaali iyo shisheeyaba leh waxa ay qabaan in dadka Soomaaliyeed uu ka duwan yahay dadyowga waddamada la dariska ah marka la joogo dhinaca tartanka aragtida guulaystaha iyo laga guulaystaha doorashooyinka sidaas awgeedna waxa ay la tahay inaan jinsiga Soomaaligu wax dhib ah u arag kuna qabin haddii inta si xalaal ah oo daah furan loo tartamo laga badiyo si ka duwan dadyowga dalalka bariga Afrika oo rabshadaha doorashooyinku sababaan gumaad iyo xasuuq aan kala sooc lahayn sidii ka dhacday doorashadii Kenya ee 2007 sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo hayay xukunka intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2016 doorashadii dadbaneed ee dhacday 2016 waxa ay sababtay geerida 3 qof oo ka dhacday dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Hirshabeelle madaxweynihii laga guulaystay oo ahaa Xasan Sheikhna waxa uu aqbalay go'aanka codka sidaasna waxa yeelay madaxweynihii uu Xasan Sheikh uga guulaystay doorashadii sanadkii 2012 waa Sheikh Shariif Sheikh Axmed labadoodaba waxa uga horreeyay oo aqbalay in laga guulaystay Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan sida uu sheegay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii baarlamaanku kala noqday kalsoonida madaxweyne Farmaajo waxa uu qorshaysnaa inuu helo 2 sano oo muddo kordhin ah ha yeeshee waxa uu dareemay goor dambe inaanay suurtagal ahayn
waxa uu isku dayey iyada oo aan la isuba diyaarin inuu qabto doorashooyin qof iyo cod ah taasna waxaa soo xirmay awoodda iyo wakhtiga loo hayo markii saddexaadna madaxweynuhu waxa uu oggolaaday in la furo wadahadal ku saabsan nuuca doorashada waana sababta keentay qabsoomidda shirarkii dhuusamareeb 1 2 iyo 3 puntland iyo jubbaland ayaa diiday qayb ahaan go'aannadii ka soo baxay shirarkaas taasna waxaa qasab noqotay in loo helo xal waana sababta ay muddo ku dhow bil xamar u joogeen madaxweynayaasha 5 dowlad goboleed iyaga oo aakhirkiina soo wada saaray go'aan iyo heshiis ay ku midaysan yihiin madaxda labada heer ee dowladda haddaba maxaa sababay khilaafka kulamada beelaha baaqa welwelka xambaarsan ee ka soo baxay shirka midowda musharaxiinta iyo in guddoomiyaha gobolka banaadir aayado qur'aan oo aan shaqo iyo xidhiir la lahayn tartanka siyaasadda u adeegsado siyaasiyiinta ama u isticmaalo qur'aanka olole doorasho oo ka dhana musharaxiinta leh damaca siyaasadeed ee hoggaaminta waddanka 14 musharax oo ka mida ilaa hadda musharaxiinta doonaya inay ka qayb galaan tartanka doorashada madaxweynaha 2021 ayaa muddo 7 ah waxa ay kulan ku lahaayeen magaalada muqdisho musharaxiintan waxaa ka mid ah 2 madaxweyne oo hore ra'iisul wasaare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen hore wasiirro iyo hoggaamiyeyaal xisbiyada siyaasadda marka la fiiriyo wax dheefka iyo faa'iidada siyaasadeed waxa ay ahayd in dawladdu awoodaha iyo fursadaha siyaasadeed ee jira u kaashato intii suurtagal ah hirgelinta doorashooyin ka wanaagsan kana heer sarreeya kuwii dhacay 2016 guusha iyo wixii wanaagsan ee ka soo baxana ay qaataan siyaasiyiinta maanta jooga xukunka iyo talada waddanka si loo iloobo ugu yaraan gaabisyada ay suurtagalka tahay inay dhaceen inta ay talada hayaan kulan ay dadka maamulo warbaahinta iyo suxufiyiin kala duwan ka qayb galeen waxa ay musharaxiinta badankoodu ku sheegeen gaboodfal xukuumaddu u geysatay balse aanay ka bixin jawaab ka badan hadal waxa la yaabka leh ayaa ah in xasan cali khayre oo loo tirinayo inuu kaalin ku lahaa qaabaynta iyo go'aannada fulineed ee gaboodfalladaas uu ka mid ahaa musharaxiintan kulankaas ay warbaahintu ka qayb gashay waxa uu ka sheegay khayre in guddiyada maamulaya doorashooyinka ee xukuumaddu waddo ay ku jiraan askar ayna askartu maamuli doonto hoolasha iyo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinku sidaas oo kalena in qorshuhu yahay in xitaa ay soo baxaan xildhibaanno askar ah khayre waxa uu isweyddiiyey sida askartu ugu tartami karto ka qaybgalka xukun iyo dawlad tala wadaag ah cabdikariin xuseen guuleed waxa uu ka sheegay kulankaas in hoggaanka xukuumaddu uu waddanka ku wado meel halis ah iyo haadaan khatar ah iyaguna ay leeyihiin kana dalbanayaan inay ka daayaan waxa uu isweyddiiyey guuleed sida xaalku noqon karo haddii uu filla Soomaaliya soo fadhiisto nin sheeganaya madaxweyne ha yeeshee aan gudaha waddanka iyo dibadda ka haysan aqoonsi siyaasadeed haddii aysan dhicin doorashooyin iyo habsocod heshiis lagu yahay waxaa ka soo baxaya waxaan dawladdu maarayn karin innaguna aanaan waxba ka qaban karin sidaasna waxaa ka sheegay kulanka xasan sheekh maxamuud oo 4 sano ka hor xilka ku wareejiyey madaxweyne farmaajo markii labaadna raba inuu ka qayb galo tartanka doorashada madaxweynaha waxa uu xusay in ciidanka shaqaalaha dawladda garsoorka iyo diblomaasiyiintu aanay sinnaba shaqo iyo saamayn ugu lahayn doorashooyinka ayna yihiin labeenta ama kareemka iyo jihada siyaasadda waddanka qurxisa suuq geysa kala saarta ama ilaalisa nabadda si siyaasiyiintu ugu tartamaan si deggan awooddana ay ula kala wareegaan si nabad ah xildhibaan mustaf dhuxulow oo ka mida musharaxiinta 2021 ayaa ka sheegay goobta in madaxweynaha iyo taliyaha mukhaabaraadku ay ka dhigteen waddanka shirkad yar oo ay leeyihiin islamarkaana qofkii talo iyo tusaale ula taga
ay weyddiiyaan waxa uu ku darsaday iyo waxa uu la leeyahay. sidaas awgeedna waxa uu sheegay in dhammaan musharaxiintii fadhisay kulankaas ay isku wada dayeen la shaqaynta xukunka, ha yeeshee aanay sinaba suurtagal u ahayn inay fahmaan in waddanku ka dhexeeya dadka oo dhan ay dastuuri tahay in doorashooyin ka dhacaan dalka 4 sannaba mar, ayna waajib iyo lama taabtaan tahay in ka qaybgalayaasha tartanka siyaasaddu helaan jawi loo siman yahay oo u saamaxaya musharaxiinta inay samaystaan ololahooda iyo isu diyaarintooda doorashada. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo waddanka xukumaya intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2012 waxa uu madasha ka sheegay in guddiga doorashadu ka dhigan yahay garsoorayaal, garsoorahana la diidi karaa haddii aan dadka garta loo gelaya midkood ama dhammaantood aanay ku qanacsanayn ama aysan kalsooni ku qabin xaakimnimada garsooraha. guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ay suurtagal tahay inuu isu arko qof la magacaabay oo adeega u ah qofkii magacaabay, haddii la isqabtana cidda tegaysa ay tahay qofka la magacaabay. sidaas awgeedna ay lama huraan tahay in si kursiga iyo talada loo sii joogo loo adeego cidda ku magacaawday. waxa uu qaaday tallaabo halis ku ah siyaasadda iyo tartanka. tallaabadaasi waa qur'aanka oo loo fasiro hadba sidii waafaqsan rabitaanka iyo danaha siyaasadeed, ama in aayadaha qur'aanka loo adeegsado ololo siyaasadeed laguna abuuro nacayb iyo kala fogaansho bulsho. guddoomiyaha gobolka Banaadir uguma horreeyo siyaasiyiinta Soomaalida ah ee qur'aanka iyo aayadihiisa xukunka la aada ama siiya macno aanay lahayn, isla markaana ku jeediya dadka ay aragti ahaan isku hayaan si ay ugu gaaraan danahooda siyaasadeed. sanadkii 2006 xilligii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay maxkamadihii midoobay iyo ururkii la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta nabadda oo ay samaysteen hoggaamiye kooxeedyadii xamar oo uu ka mid ahaa xilligaas Cumar Finish. maxkamaduhu waxa ay adeegsan jireen marka ay rabaan inay dadka ku kiciyaan hoggaamiye kooxeedyada aayadda 48aad ee suuradda Namal. intii lagu jiray dagaaladii jabhaduhu hor kacayeen sanadkii 1900 laga soo bilaabo sanadkii 1983 hoggaamiyaasha jabhadaha, maleeshiyooyinka iyo guud ahaan mooryaanta beeluhu waxa ay isu arkayeen mujaahidiin iyaga oo geysanaya dil, dhac iyo barakicin. kadibna waxaa xigay adeegsiga eray bixinta mujaahid iyo murtad oo sababtay inuu daato dhiig badan oo ilaa maanta aanay jirin cid u eedaysan. guddoomiyaha gobolka iyo duqa Muqdisho 14 sano kadib midowgii maxkamadaha waxa uu aayadda 60aad ee suuratu Axsaab u adeegsanayaa ololo siyaasadeed. hawshiisu waxa ay ahayd inuu ka shaqeeyo qurxinta iyo hagaajinta jidadka caasimadda, daryeelka jidadka deeqda iyo canshuurta lagu dhisay ee daryeella'aanta u burburaya Cumar Finish, oo ay suurtagal tahay inuu ku qasban yahay inuu si walba u difaaco kursigiisa. sida laga filayo dhammaan siyaasiyiinta waxa sida dabaylaha siyaasadeed oo ay qasab tahay inay degaan, xitaa haddii ay u jeestaan dabaylahaasi meel aysan doomaha iyo maraakiibtu doonayn ama aanay rabin. bartamihii sanadkan guddoomiyuhu waxa uu u sheegay dadka caasimadda in waddanka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah. taasina waxa ay muujisay in guddoomiyuhu qaatay dhaqan siyaasadeed oo ka duwan guddoomiyaashii ka horreeyey. marka la eego dhaqanka, dabciga iyo caadada siyaasadeed ee waddanka, si walba oo madaxda xilka joogta isugu dayaan inay ka labalabeeyaan qabashada iyo hirgelinta doorashooyinka, ama siyaasiyiinta leh damaca siyaasadeed ay u weeraraan xukunka jira, waa lama dhaafaan inay dhacaan doorashooyin la isla oggol yahay, awoodda la isugu wareejiyo si nabad ah, musharaxii laga guulaystaana uu u hambaliyeeyo musharaxa ka guulaystay. sababtuna waa in uusan heli doonin cid taageerta
ama la jirsata isaga oo guuldaraystay mid kalena waa in waddanku ku tiirsan yahay ciidan shisheeye iyo kab miisaaniyadeed oo ku yimaada kaalmo caalami ah madaxweyne farmaajo 4 sano ka hor 2016 waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii ku shirsanayd isla hoteelka ay shirka ku yeesheen musharaxiinta 2021 dhaliisha dhaleecaynta iyo sheegidda ceebaha hadba cidda joogta xukunku waa soofaha ugu wanaagsan ee daxasha looga daadiyo xukuumadaha laguna baraarujiyo madaxda sidaas awgeed dadweynaha waxaa la siman in uusan la kala safan siyaasiyiinta ha yeeshee uu gacan siiyo in siyaasiyiintu ay helaan jawi iyo fagaare ay ku tartamaan kadibna midka guulaystaa ku helo sharciyad uu ku xukumo waddanka muddo 4 sano ah isaga oo og in sida uu u guulaysto looga guulaysan karo sida qorshuhu yahay erga ku dhow 28,000 oo qof ayaa dooranaysa 275 kursi ee golaha shacabka halka baarlamaan goboleedyadu ay soo dooranayaan 54 kursi ee aqalka sare isugeyntu waa 329 kursi oo uu ka kooban yahay baarlamaanka 11aad haddaba ma kula tahay in kaalinta kuu bannaan ay tahay inaad taageerto in beeshaadu u soo xulato baarlamaanka dad wanaagsan aqoon iyo waaye aragnimo ahaanna dhisan kuwaas oo wax tari kara labada heer ee ay maanta ka kooban tahay dawladda Soomaaliyeed